رصاص بالي لا دعي سكلونكا كلونكو هذا قرن هردان كاكاي وحكلونكو هذا قرن يا حبيبي رصاص بالي لا دعي شان دمير ومرين ما ينبرهاي قاعدين ببكسون دونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت لي ومركلي مقال عصب برتن آدي قد هانيسان وبرتين كل مجرني ولا كامل برو آدي ما هتسنتين ولا ريال ملك استاذ كجوتن دافع عالمك ولا لها قلبكم حيد لي سودو هذا كسودو هذا مل آدي اللي نكش عليه هاي إن رنتي حوالي فرحت على المداوتشيجة إني كم وقته إن صبرت واندين شيء إن أرتو ولا شيء صفية تسمع حق يدي إن شاء الله إلهي وحكر شيء إنه إلهي صوت ظاهريو in badan oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed waxyaabihii aanu ka hadli jirnay oo sheegi jirnay way ogaadeen wiilkii kibray inta kashbacay maartay kaman nin weyn yeeshayna waa kan oo maaragtay aadka u kibriyay isaguna waa kan kibirkiisa ilaahay baa la gediyay xaqiisi gacantiisu isku xiray isaga xaqiisi gacan macnaha xaqi gabadhaas gacanteeda isaga ku soo saaray iyadoon cid kale loo doonin insha Allah ta'ala waxaan idin hayaa barnaamij kale hadal baan idin hayaa sila marka koowaad gabadhan walaashay ah oo ii soo dirtay waxaan ka raali gelinayaa muddo ayay lambarka iga soo wacwaysay oo aan ka qaban waayay markii dambe qoraal dheer ay ii soo qortay baan ku arkay raali gelin baan ka bixinayaa buuxda codkan mar hore rabtay inay ii soo dirto laakiin ilaahay qadartiisa kuma ahaan hadday ahaatay walaashay waxaan leeyahay aad iyo aad magacaagana waan ka jarayaa sidii ballanteenu ahayd sababta aan uga jaraya wax kale maaha waa sababa amni maadaama ay ku nooshahay Hargeysa maadaama uu alxariif weli bastooladiina sito Hargeysana dhex joogo wax maqalana de anagu ma maqalinba ilaa hadda in la qabtay oo xukuumadda aysan tallaabo ka qaadin in uusan gabadha dhibaato u geysan waa gabar kamid ah asxaabtiisa dhow inta haddaan taa uga gudbo waxaan rabaa walaalayaal intaanan codkan sirta ah idin soo bandhigin oo caddaynaya hujuumkii iyo dhibkii iyo dhibaatadii kii shalay aanu soo daynay muuqaalkii shalay ayuu kani qayb ka yahay isla kaama ahan laakiin markii la haystay gabar soo wacday oo nafti u keentay soo wacaysay iyo dadkii soo wacay qaabkii ula dhaqantay Safiya Tusmo iyo hadal ay u duubtay gabadhaas oo sir away walow warkaan ku fiicnaa intaan barnaamijkaasi jirin cadayn buuxda uu noqon lahaa anaas qaladka lahaa gabadhu qalad may lahayn because mar hore inay ila wadaagto taan kale raba walaalayaal inaan idin sheego barnaamij live baan soo gelayaa lambarkan shaashada idin soo saaraya asxaab badan baa jirta oo gabdho wiilal dhalinyaro odayaal indhaxaad mid kastaba leh oo barnaamijkan intii aanu wadnay oo dhan dhigi jiray war noo samay codkayaga aanu dhiibanay codkayaga ma garanaysaa noo samay codkayaga aanu dhiibanno si aan bulshada ula wadaagno sida aad hadalkaaga kaliya in dadku arkaan baanu doonaynaa oo rabnaa Safiya Tusmo in Soomaali oo dhan oo magaalo kasta oo Soomaali degan tahay ku nool in ay garab taagan tahay inaan muujino marka dad badan baa fikirka ila wadaagay waan ka ballan qaaday galabta haddii ilaahay idmo ayaan soo gelayaa ama marka ay noo tahay annaga haddii alla yiraahdo 19 marka ay noo tahay 19 waxaan ula jeedaa waa 7 fiidnimo markii ay Yurub tahay dabcan Soomaaliya waa 8 fiidnimo marka xilligaas ayaan live soo gali doonaa lambarkan shaashada soo saari doonaa halkaas baa laga qayb qaadanaya inta samaha jecel wixii hadal qaldan damca ama cid lama caayi karo reer looma gafi karo xataa cabdi cajuun oo laga yaabo dad badan inay soo qaadaan aabihii wax lagama soo gudbin karo wax xun qofkii sheega sidaas uu barnaamijka kaga baxaya waa in wax tala wanaag iyo tusmo meesha lagaga hadlo wax xumaan ah idna kama aqbali doono insha Allah ta'ala wixii xumaan la yimaado oo ama reer ka hadla ama wax kale ka hadlana meeshaas ayaan telefoonka ugu dimin doonaa haddii alla yiraahdo intaa kadib haddaan kaga gudbo intaa bal waxaynu ka hadlaynaa gabadhan walaasheena warbixinta ay inoo soo gudbisay iyo codka sirta ahayd magaceeda inagu ka reebi doona aynu ku soconno salaam xabiibi aad baan ku salaamayaa waxaan ku leeyahay
samarada maxay tiraa war anaa ku haya wadna ilaahay baa ku haya anaa ku warrami doona waxaa ma dhicin waxaan ku idhi dee arrimaha meesha igu qabsaday kama warrami karo sawirkaani waa iska waraaba taag arrimaha meeshaan igu qabsaday bay tiri halkaa waraaba utaaggaan u socdaa waxay tiri arrimaha meeshaan igu qabsaday kama warrami karo laakiin bay tiri sawirkaani waa waraaba utaag magalooti maluug waa qof loo ekeysiiyey dadka reer miyiga way yaqaanaan xerada agteeda iyo guriga agtiisa laga taagaa qof baa laga dhigaa saa u taagan oo waa geed weeye shaati baa loo geliyaa iyo ama funaanad baa loo geliyaa hoosna waxaa looga geliyaa marasaa loogaga laabaa qof buu u ekaadaa marka waraabaha oo kale aan bahal oo dhan markuu arko wuxuu moodayaa qof inuu meesha taagan yahay marka waxaa la yidhahdaa waraaba utaag ayay iyadu tiri waxaa la dhahaa magalooti ama maluug dadka gobolba qayb baa looga yaqaanaa marka sawirkii weeye dhunkashada ahays dhunkanayana lasoo dhigay waxay tiri taasi waa waraaba utaag waa magalooti wax weynba maaha waa wax iska beenoo meel la taagay wax jira maaha laakiin waxay haysta ayaa ka daran bay ula jeedaa aynu ku soconno waxba kama jiraan waan sawiro meesha u saartay show off istusnimo u saarsaday waana saartay anigana waxaan islahay dad ka baxaysaa meeshan naftaada ilaali waana saartay anigana waxaan islahay dad ka baxaysaa meeshan naftaada ilaali marka xabiibi anaa ku warrami doona rasaas baa layla dhacay si kaloonka wax kaloonku idhahda garan maayo hurdaan ka kacay wax kaloonku idhahda garan maayo xabiibi rasaas baa layla dhacay shaandhaan ahay shaandhamiir umalin maayo nabarahay gaadhay inaan ka bogsan doono shaandhaan ahay bay tiri waa maqlaysaan shaandhaan ahay baastamiir baan ahay bay tiri baastamiir bahalka baasada lagu miiro meel buu ka dololaa shaandhaan ahay babababababa xabad baa layla dhacay rasaas baa layla dhacay bay leedahay u malayn maayo tan igu dhacday inaan ka kaban doono laakiin waan ka gelgelinayaa qof haddii 10 musmaar lagu taago dhabarka lagaga taago saa hadduu isaga jafjafo wax laga yaabaa mid ama laba inay ka dhacdo waa wax ku ool marka waxay leedahay waa ka gelgelinayaa keliya haye bal wad wax kaban ku idhahda garan maayo xabiibi rasaas baa layla dhacay shaandhaan ahay shaandhamiir umalin maayo nabarahay gaadhay inaan ka bogsan doono laakiin insha allah waan ka gelgelan doonaa waxaan islahay un horta bal nabad ku baxa umalin maayo nabarahay gaadhay inaan ka bogsan doono laakiin insha allah waan ka gelgelan doonaa waxaan islahay un horta bal nabad ku baxa markani waa markuu haystay waa markuu hargeysa ku dhex haystay oo saa u haystay oo waa marka uu muuqaalka aragteen iyo ka duubay oo waa gabar uu qalbiga ka dilay awalna maskaxda uu jinaab kaga qabsaday iyo nimankii Suudaanta ahaa Masar joogay barnaamijkoodii markii dambena ubadeed si bareera uu utsay oo maartay isagoo bastoolad wato madax kaga qabtayo magaalada banaankeeda isoo waxba ku soo sameeyay weeye markan wuu haystaa macal telefoonkeedii jeebku ugu jira isaga haysta macnaha telefoonkeedii xataa mararka qaybta jeebku ugu jira waxay soo duubin bay oran doontaa waxay soo dirmeen bal intaan boorama tegayo oo xor noqonayo oo bal horta bal meeshaan ka xoroobayo kaliya ii kaadi bay leedahay walaal ad ha ii soo duubin qoraal ha ii soo dhigin ilaa boorama kala soo hadlo aan kula joogaa amba anuu aan ku idhahdo waqti baan haystaayo anaa ku warramay saas baan dadkii soo waxay u dhan uga dhacay qof walba dadka xataa qaar baa joojin waaya koolka iyo oonbaloobe hoos teleefonkayga marmar baa sheebada lagu sitaaga la wataa waan afduubanahay sidii wax afduuban ayaan ahay meesha intaan ka baxayo aan iska saarnaado xabiibi anaa ku warrami adoo aniga iga warsug insha allah iga warsug cajiib waa markaas waxay caddaynaysaa xataa intay hargeysa joogtay inaysan dowlad aaminayn inaysan dad kale aaminayn inaysan odayaal aaminayn waxay leedahay isug bal intaan boorama tegayo keliya markaasun baan kula hadli karaya markay boorama joogtayna weli
kasha iyo laabtay ka baqaysa gabar afduuban oo magafe ugu afduuban Hargeysa dhexdiisa magafe ka jira ugu afduuban bay ahayd magafahaas ay u afduubnay cidina ma ogeyn haddii ay cid u sheegtana in la dilay ka baqaysa oo ninkani uu ku tago marka sidaa daraaddeed gabadhani boorama markay tagtay ayay kadib dadkeedii waxay dhaheen aamus oo hadlin afkaaga maaragtay saas jinyeer ku xiro aamus bay dhaheen intii bay ku aamusneed ilaa haddana ku sugaysaa isaguse wuxuu u hadlayaa hadda isagii baa wuxuu ku jiraa fallaari gilgilasho kaagama harto barihii bulshada markii la soo dhigay muuqaalkan dhowr meelood buu ku hadlay wuxuu rabaa inuu isdifaaco laakiin qof kasta oo garasho leh oo Soomaaliya oo caqli leh wuu dareemi karaa wuuna arki karaa inaan wuxuu yiri waynu ka hadli doonaa wax lagu qoslo ayuu kaga hadlay social media waxaan ugu dambeyntii waxaan oranayaa magaalootigan inuu wakaha ah waxaan oranayaa odayaal ceebaysay dad dhaqan lahaa oo la yaqaanay ceebaysay oo reerkaagii baxar baad dhex istaajisay waxaan kugula talin lahaa inaad ceebtii dhakada saaratid oo sida saxda ahayd sheegtid oo tiraahdo raallah layga ahaado odayaasha anaa baxarka geliyay ma garanaysa adiguna aad isu dhiibtid maamulka intaas bay maanta kula gudboon oo sharafkaagii iyo bal qofnimadaadii say ku soo noqonayso lama yaqaane meeshaasun baad xataa haruub daatay caanaha hambada la qaban jiray halkaasun bay kuugu dhowdahay bini'aadannimadaadii aad bini'aadanku sii ahaan lahayd in aad tiraahdo war qalad baan galay odayaal baan baxar geliyey ummad baan been u sheegay intaasoo boqoloo kun oo qof baan been ka dhaadhacshay waraalha layga ahaado ummadda Soomaaliyeed sida ragga qaldama oo qoladaadka gala waa sida xeerka lagu yaqaan ama nin raga oo damiir leh oo kastiba waa inta uu maaragtay sameeyo markii qalad ka dhaco qaladkan ka dhacay hadda soo istaag maantay kula gudboon tahay intaas ka badan iskuma sii adkeyn kartid kuma taalo sharafi kuma taalo sumcadi kuma taalo magac kuma yaal in adeeg dambe cid ka akhrisan mayso wax dambe wax walba oo aad soo sheegtid oo hadal cid ka dhageysan mayso wareede talo maantay kula agtaalaay hatta wali daba qabasha leedahay dib inta isugu noqotid hal mar war ma weyday dadka kula taliya oo kugu dhow oo qaybtood marba wax soo dusinayaan oo muuqaalada ka soo dusinayaan kuwaas ma weyday in ay hal mar xataa in ay adiga ay sameeyaan inay kula taliyaan oo ku dhahan warniyo markaan xaajadii laynaga adka iska daa madax adayg tasho keligaa nin baa tahay tasho kolba u malayn mayo aqli wax garta oo damiir leh ama qalbi wax nici kara ama qalbi ma garanaysaa damqan kara oo wax yar oo damqasho islaamnimo ama bini'aadanimo ay ku jirto inuu kugu jiro u malayn mayo intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh